ku soo dhow Somali Voice in Norway magacaada iyo muddada aad joogtay magaalada Bergen. magacaygu maxamed Cumar Faarax 16 sano ugu dhawaan iyo degan. Sidee u aragtaa tirada ururada Soomaalida iyo tayadooda? tirada ururada Soomaaliyeed iyo tayadooda ciri dhul bay isku yihiin, wayna badan yihiin, tayar male. Ma jiraa ururo aad isleedahay waxbay bulshada u qabteen iyo kuwa aad isleedahay waxbay bulshada kaga dheeleen? aniga ahaan bar wax qabtana way jiraan oo wax ku dheelena way jiraan. Maxay ugu baahi badan yihiin bulshada Soomaalida ku dhaqan magaalada Bergen iyo nawaaxigeeda? awlaadda in la caawiyo oo laga caawiyo criminalitiga. maaragtay intaan joogay dowladda Bergen in badan ayaa waxaa kala hadlay anoo keliyaata ah oo maaragtay si isana waan kuu sheegi doonaa inta qore aan la kulmay waxay igala hadleen criminalitiga. taayir waxaa lay gaadhay jaaliyad maad leedihiin mise ma leediin. kolkaa waanu sheegay inaan jaaliyad leenahay, laakiin waxa dadka dhibaatada ka saara waa jaaliyad, waa mid keliyaad 200 oo urur maahin, 120 ururna maahin. Maxay tahay fariinta aad Somali Voice in Norway u marinayso heerarka kala duwan ee maamulka Norway? waxaan uga baahanay inayna gargaaraan oo dadka kala gartaan. iyakana danbaa ugu jirta ururo taya leh oo mid iyo laba oo faraqutir inay soo saaraan danbaa ugu jirta. criminalitiga say u joogsato qowmiyadeeda Soomaaliyeed. Maxay tahay fariinta aad Somali Voice u marinayso bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Bergen iyo guud ahaan dalka Norway? waxaan u marinayaa reer Norway oo dhan mid kaliya tanaba Soomaaliyeed, gaar ahaan Bergenay. waqti badan baa inaga soo dhacay ka inii qadaamaya ee awrkaad raraysiin ee dar Ilaahay inigu raraya inigu doorta oo iska daaya nin jacayl iyo hebel jacayl ee dantiinha nin kastaba gudihiisu ka ooyaya. miiska soo fadhiista wala tashada, taabaa dadka lagu badbaadaa. awlaadduna ku badbaadaysaa, hooyadu ku badbaadayaa, odayga weyne ku badbaadayaa, ka baahida gaar kale ku badbaadayaa. midnimo